dhammaan caalamka waxa aad loo hadalhayaa dhacdadii argagaxa badnayd taasoo lagu dilay in ka badan 156 caruur ah gudaha Iiraan. Donald Trump soo ku safray hawada ayaa waxa la weydiiyay baydiga ka dambeeyay dilkii loo geysay caruurta tirada badnayd ee lagu dilay Iiraan. Sugu saacad wuxuu sheegay May Iiraan ba ka dambeysay qaraxa on the first day of the war and kill 175 people. That was done by Iran. Is that true, Mr. Hegseth? We're certainly investigating. Still balse waxa garabkiisa taagnaa Hegseth xogayaa dagaalka Mareykanka isagoo sheegay waanu baadhaynaa halka way ku kala hadleen balse Al Jazeera ayaa mar dhow waxay sii daysay fiidiyogan hubka loo adeegsaday weerarkan ayaa wuxuu noqday madfac la yiraahdo Tim Hawkins. Iiraan ayaa waxay sheegtay in Mareykanku yahay dalka qura ee haysta madfacan kaasoo Israel aan haysan sidoo kale Iiraan aan haysan.